howlgalkan oo ahaa mid ka dhan ah maleeshiyaadka argagixisada shabaab ayaa ciidanka xoogga waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose. goobaha ay howlgalka ka sameeyeen ciidanka xoogga ayaa kala ah Idimow, Fida Muuse iyo Muuri oo ka mid ah deegaanada dhaca dhinaca Deexda oo ay ku dhuumaaleystaan kooxaha argagixisada. waxaana howlgalkan si wadajir ah u fuliyay Kumaandooska Gorgor iyo 14 Oktoobar ee xoogga dalka. taliyaha taliska Oktoobar ee deegaanka lambar 50 Dhamme Cali Caato oo howlgalka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa carabka ku adkeeyay in ay ka go'an tahay soo afjaridda cadowga argagixisada Al-Shabaab. howlgalkaas horta markii horeysa aan ku soo laabay waxaa ka mid ahay xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Oktoobar gaar ahaan taliska guutada 14 Oktoobar waxaana garab nagu ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda ka mid ah Gorgor gaar ahaan ururka lixaad qaybtiisa ka joogta deegaanka lambar 50 ayaa marti nagu garab siiyay annagana dii aan nahay deegaankii ama taliska meeshane waxaan xoogga si laba laabnin eerida aan ku baacsano waxa la wixii nagu soo dhawaada howlgalka aan sameeyay maanta ujeedkiisu waxa ugu weyn sidii aad ogtihiinba waa in badan iyo in yar waxaan ugu jeednay in cadawga eeridan laga sheegay maalmahan dhow si loo durjiyo meeshii ka soo kacto in meel ka fog in la geeyo ujeedka ugu weyn taas waa meeday maalmahan ma si aad ogtihiinba dhaqdhaqaaqa xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka waday meel kasta oo joogaba annagu waxaan ka sameeynay aag aan ku suganahay tuulooyinka oo siimada degmada lambar 50 gaar ahaan Muuri ilaa Idimow artii ilaa eerida kala marti ku dhadhow ayaa howlgalkaas aan ka sameeynay waana ku baacsan nimanka eeridaas noogu sheegay wax la mid ka haybo wax noo istaagay wax noogu dhawaa karantoona ma laha hadafkeena had jeerba sidaad ogtihiinba oo naga horeysay daw taaganahay in cadawga meel kasta oo soo istaago man ka daba tagno aan ka hor tagno waxaan ugu baaqaynaa cid kasto cadawga maartii oo isleedahay inay ka soo dhawaa agtiis ku soo dhawaa kara inay ka hor tagaan laamaha amniga meel kasta joogan ay la soo xiriiraan